kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka channelka Danab Media qodobada aan ku soo qaadan doonana waxa kamid ah ciidanka Kumandooska Danab oo gaari qaraxa ku gubay degmada Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xooga dalka oo dilay horjoog ka tirsan nabadiidka Alshabaab oo lagu dhaawacay gudaha gobolka Jubbada Hoose akhbaaraadka caalamkana waxa kamid ah maalintii ugu dhigdaashada badnayd magaalada Yangon ee wadanka Myanmar fadlan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Danab Media subscribe saar like iyo share la wadaag asxaabtaada haatana u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen daawadayaal oo faahfaahsan ururka afraad ee guutada 16aad ciidanka Kumandooska Danab sida gaarka u tababaran oo gaari qaraxa ku gubay deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka Kumandooska Danab ayaa saakaroortii hore howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ku fashiliyay gaari qaraxa oo noociisu ahaa Serafa ciidanka Kumandooska Danab ee sida gaarka u tababaran oo si hayay xogta gaariga qaraxa inuu ku diyaarsan yahay halkaasi ayaa qaraxiyay gaarigaasi waxaana ku dhintay hal dhagar qabe oo ka tirsan nabadiidka Alshabaab isla markaana waday gaarigaasi cadowga ayaa doonayay in gaarigan qaraxa ay ku waxyeelayaan shacabka Soomaaliyeed sida warar hoose lagu helayana loo soo waday magaalada Muqdisho laakiin nasiib wanaag waxa ka hortagay geesiyada ciidanka Kumandooska Danab dhinaca kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumandooska Danab oo halkaasi ka sii waday howlgalka burburinta ah kadib markii ay gubeen gaarigaasi ayaa waxay baabiyeen goobo nabadiidka u ahayd gabaad isla markaana ay ku baadi jireen dadka shacabka ah howlgalka noocana ayaa ujeedkiisu yahay baabiinta kooxda nabadiidka naflacaariga maleeshiyaadka Alshabaab iyo in la baabiyo awoodda nabadiidka howlgalka noocana ayaa qayb ka ah howlgallada guud ee lagu baacsanayo kooxda haraadiga nabadiidka Alshabaab horjooge Mustafa Nuur oo ah horjoogihii maleeshiyaadka Alshabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha baadda ah ee laga qaado shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka ayaa waxa dhaawac halis ah u geystay mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ahayd horjooge Mustafa ayaa la sheegay inuu khilaaf soo kala dhex galay mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah kadibna rasaas la dhacay horjoogaha saraakiil ka tirsan ciidamada Kumandooska Danab oo la hadlay warbaahinta Danab ayaa sheegay in dhaawaca horjoogaha Mustafa Nuur uu ka dambeeyay mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka saraakiisha Danab waxa ay xaqiijiyeen dhaawaca horjoogaha lagu daweynayo goob caafimaad oo ku taala magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose goobtan caafimaad ayaa waxa lagu magacaabaa Cabdi Umar maadaama deegaanada argagixisadu joogto aanay lahayn isbitaallo horjoogaha la dhaawacay ayaa nabadiidka Alshabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha baadda ah ee laga qaado shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbooyinka gaar ahaan webiga deegaanada dhaca sida baraha aseydooyinka guryaha xoolaha iyo gaadiidka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanada Mushani daniga Majabta oo la sheegay inay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadka argagixisada Alshabaab saldhigyada nabadiidka Alshabaab ay ku lahaayeen Mushani daniga Majabta oo u dhaxeeya deegaanada Janaale iyo degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu burburiyay howlgalka qorsheysan saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa sheegay in la dilay horjoogihii amniyaadka u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose iyo horjoogihii jabhadda nabadiidka Alshabaab waxaana lala dilay in ka badan 50 maleeshiyaad oo la socday horjoogaha la dilay saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa magacyada horjoogayaasha la dilay ku kala sheegay Macalin Bukhari oo ahaa horjoogihii jabhadda Alshabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba horjooge Xasan Ganay oo Alshabaab u qaabilsanaa horjoogihii amniyaadka gobolka Shabeellaha Hoose ugu dambeyntii howlgalku waxa qayb ka ah howlgallada guud ee nabadiidka Alshabaab looga sifaynayo deegaanada farkutiriska ay ku dhuumaalaysanayaan haatan aynu eegno dhinaca wararka arrimaha dibadda dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in 38 mudaharaadayaal la dilay maalin ka mid ah maalmaha ugu dhiiga daadashada badan tan iyo markii militarigu ay rideen dowladda Myanmar ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay ka mid ah magaalada ugu weyn Myanmar ee Yangon iyadoo banaanbaxayaashu ay adeegsanayeen ulo iyo midiyo militariga ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dibadbaxayaasha kadib markii la weeraray meheradaha Shiinaha dibadbaxayaasha ayaa rumaysan in Shiinaha uu taageero siinayo militariga Burma dalka Myanmar waxa hareereeyay mudaharaadyo tan iyo afgambigii militariga kowdii Febraayo maamulayaasha militariga ayaa xabsiga dhigay
San Yukai hogaamiyihii rayidka ee dalka ahana madaxa xisbiga National League for Democracy ee loo soo gaabiyo NLD. Xisbiga NLD ayaa si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashada sanadkii hore dalkaasi ka dhacday ase ahaatee militariga ayaa sheegay in doorashadaasi lagu shubtay. hogaamiyaha kooxda ka mid ah siyaasiyiinta Myanmar oo inqilaab militari xukunka lagaga tuuray ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono kacaan ka dhana maamulka askarta ee talada dalkaasi qabsaday. hadalkiisii ugu horreeyay ee dadweynaha uu kula hadlayo ayuu mahan weyn ku yidhi wakhtigani waa kii ugu mugdiga badnaa ee soo mara qarankan, waana wakhtigii qorraxdii u soo baxday ay ka dhacday. ninkani oo dhuumasho ku jira ayaa hogaamiyaha kooxda sharci dejiyayaal ah oo iska diiday inay aqbalaan inqilaabka bishii hore dalkaasi ka dhacay. ugu yaraan 21 qof ayaa axaddii lagu dilay magaalada Yangon. waxaa sidoo kale dhimasho iyo dhaawac laga soo warinayaa goobo kale oo ka tirsan waddanka. shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegaya inay badan tahay in tirada dhimashada ay intaasi ka sii badato, iyadoo sababta ku sheegay inay jiraan dad badan oo dhaawacyadoodu culus yahay oo ay adag tahay inay ka kacaan. safaaradda Shiinaha ee Myanmar ayaa barta Facebook ku daabacday war qoraal oo tibaaxaya in la bilaqaystay sidoo kalena la burburiyay warshadahooda. safaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaha Shiinaha uu ku dhaawac soo gaaray. safaaradda ayaa Myanmar ugu baaqday inay qaado tallaabooyin dheeraad ah oo lagu joojinayo dhammaan ficilada rabshadaha wata si sharciga waafaqsan loo ciqaabo dadka sameynaya ficilada amni darrada si loo xaqiijiyo badqabka nolosha iyo hantida Shiinaha. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warkii aad kala socoteen channelka Danab Media. fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Danab Media, subscribe, share, like iyo share la wadaag asxaabtaada. sidaas iyo nabadgelyo.